السلام عليكم وأنا جانا سي شرقري سبسكرايب نقول فدان كل لايك نصار وحكمته هني تحناها يا عربتي هره. السلام عليكم sheekadu maanta waa sheekad weyn sheekooyinkii hore waana sheeko u baahan in wax lagu qaato waxa jirni biyola oo tuula ka caan baxay wanaagiisii iyo wax qabadkiisii qofkuna had wanaagsanaado dadkuna ay ka amaan helaan way jeclaadaan ilaahayna wuu jeclaadaa walaal naga ilaawin inaad channelka sii share gareyso asxaabtadan aad sii gaarsiiso inta ka dib madaxweynihii ayaa waxa uu amray wasiirkiisii inuu ninkii uu keeno xafiiskiisa inta ka dib waxa uu keenay wasiirkiisii hadda madaxweynaha ayaa ka dalbaday inuu u shaqeeyo isaga iyo ciidankiisa aanu bixin ubiyahana u qaybiyo isna waa ku qancay fikirka wanaagsan ee madaxweynuhu amray inta ka dib waxa uu qaybin jiray dadkii shacabka ahaa biyaha waanu siisiin jiray yacni dadkii meesha ka shaqayn jiray sida xafiisyada iyo goobaha dawladda haddaba ninkan madaxweynaha ay aad iyo aad isugu dhawaadeen oo wada sheekaysteen saaxiibana ay noqdeen inta ka dib waxa uu maqlay wasiirkii arrinkaas wasiirka ayaa ka xumaaday oo yiri anigoo wasiir oo ka darajo sareeya ayaan madaxweynaha intaas oo la sheekaystaan oo la fadhiinay suukan yar shaqaalahay madaxweynaha uu iga dhawaadaa kulay bilaadanka qaar badan oo kamid ah waxba dadka ma ogole ninkiiba waxa uu keenay fikrad sidoo ninka ay madaxweynaha isugu dir lahaa waxaanu ku yiri marka madaxweynaha u tagayso afka marka soo xiro yaani maaskariya afka wax si gasho sida madaxweynaha aad u sharaftid haddaba ninkiiba bilaabay markii madaxweynaha uu imanayo inuu afka wax ku xidho in muddo ah ay madaxweynihiisa kula hadlayay oo ugu imanayay inta ka dib wasiirkii ayaa u yimid madaxweynaha oo ku yiri wasiir ninkano waxa uu igu yiri afka madaxweynuhu waa qarmuun waxaan sii xidhaa maaskaro isagoo isku diraya labada qof inta ka dib madaxweynaha arrinkii waa uu rumaystay in badanna waa uu fikiray arrinkiina waa uu rogrogay haddaba inta ka dib waxa loo yeedhay ninkii miskiinka ahaa ee biyoolaha ahaa dibna waxa loo dhibay ubax waxaana lagu yiri ubax xasan ku sharfay ee ubaxa qaado isna run baa u mooday oo waa uu qaatay ubaxii haddaba inta ka dib waxa la amray rag shaqaalayaasha ahaa in qof kasta ubax sita ay ku dhaxarkaan meesha dawladda ay dilaan inta ka dib ninkii miskiinka ubaxii waa uu qaatay isagoo iskaga faraxsan haddaba waxa ka dib yimid ninkii wasiirka ee xumaa waxaanu ku yiri xagaad ka timi waxaan ugu jawaabay waxaan ka yimid madaxweynaha waxaanu siiyo ubax yaani ubax uu igu sharfay waxaan ugu jawaabay in ubax ana kaga haboonay si ubaxa wixii waa uu ka qaaday waanu qaatay hore waxa loo amray qof kasta oo lagu arko ubax in la dilo waxaana dilay ninkii wasiirka madaxdii shaqaalihii madaxda ahaa ee askarta ahaa haddaba ninkii madaxweynaha ayaa waxa uu yeedhay ninkii miskiinka waxaanu ku yiri inuu arrinkan soo ku dhacay waxaanu yiri wasiirku waxa uu oran jiray afka mara ku sii xidho madaxweynaha si aan afkaaga ugu urin yaani adoo sharfaya madaxweynahana waxa uu ku yiri madaxweyne ninkan waxa uu ku yimaadaa isagoo afka wax ku xidhan afkaaga ayaa qarmoon miyaa waxa uu igu yiri labadii nin waa uu isku daray yaani madaxweynihii ninkii shaqaalaha ahaa sidaana waxa ku badbaaday ninkii miskiinka ahaa ee shaqaalaha ahaa hore waxa loo yiri godaha qodin dad qodanaha dheereen ku dhici doontana mooyee xadiis nabi ayaa waxa uu ahaa muslimku waxa weeye kay ka nabad galaan dadku gacantiisa iyo afkiisa iyo adinkiisaba yaani qofka dadka amaan galiya ayaa muslim ah